gargaarka aqoonta maamulka charity horeysa waxaan hadda soo wareysanay maamo kamid ah maamooyinka haddana waxaa la joognaa maamadii labaad la joognaa maamo Timiro oo kamid ah kaamka Doolaawe kaam 1 ah marka waa xaaladda maamoyin kamid ah maamoyin kaamka kaam 1 ku yaala Doolaawe waxaan la joognaa maamo Timiro maamo Timiro ujuwaana joognaa haysato caruur masaakiin ah ka hadlayso waxbarasho la'aan iyo iskuul ma haystaan ilmihii dugsiga ma haystaan aad iyo aadna way u dhibaataysan tahay il daran way ku taalaa marka waxa ay codsanaynaa walaalaha gargaarka aqoonta maamulka charity in sida uu dhaqsiyaha badan insha Allah loo gargaaro insha Allah waa lagu fiirsanayaa waa lagu daawanayaa walaalaha Soomaaliyeed daawanayaan problem waa waxana ma haysan baayaan hayso qaajir ma jid ilmihiin agoon ma wax si hay mal dhar wax uu gaday mal baayaan hayso problem waa lagu duuya bacna ma haysan qaajab ma haysan waa taabana banahan ilmaha dugsiga dhigtaan waxa lagu goolihay meel lacag ay rabaan gul beesa rabna lacag qaajayna dilayso waxa uu ku dhigtana ma haysan ilmaha dugsiga waxa uu geeweysay lacag ma haysto lacag laga rabaa iskuul ma dhigtaan dugsiga la rabaa hadii oo lagu geeyo dugsi oo waxbarashadooda meel laga saaro dugsi way dhiganayaan Soomaaliya waa dhigahay ma sha Allah qaajina waana haysan roor waan ana ariyo nima qabo masaakiin aan ahay qaajina waana haysan badar ma haysan wax roorna waan u duuya bacna ku dhaxsana ma haysan aad walaalaha gargaarka aqoonta maamulka charity maamadan aad ku dhibaataysan degan kaamka Doolaawe kaam 1 ah maamo Timiro ajib xaaladeeda aad iyo aad u daran tahay waxay ku codsanaynaa in soo waqtiyaha badan marka qof walba soo gargaaro waa tacaawunu alal birri wa taqwa marka maanta waxaa baxsato bari waad helaysaa miisaanka qiyaamo ilaah kuwa kawaamid insha Allah walaalaha gargaarka aqoonta maamulka charity waxaan la joognaa wiil Soomaaliyeed oo ka tirsan kaamka Doolaawe kaam 1 laba wiilka magaciisa waa Daalib Abbas marka Daalib Abbas xaaladiisa ay daran tahay oo 6 caruur u joogto marka asigana oo shaqaysan karin Daalib seetahay وفيانا ما شاء الله هي سيده lagu hayaa xanuunka dawr xanuunkayga aad iyo aad baa leeyahay maanta ma sha Allah waa nin hor u shaqaysan jiray alxamdulillah hadda macna wax aan qabsan karo ma jirto la aroor way joogtaa wallahi wixii maanta magaalada aan ka soo dhacsan magan Allah inimo aan ku kana ilmaha ku biila guri kiraan ku jira tuba lacag laga rabo nalki lacag laga raba marka walaalahay macna waxaan ku codsanayaa marka inaad iga qabataan wax alla yar ibadaad macta iga soo galgashaan soo gaarsan xanuunka gacmaha kaliya ma uu ku agyahay mise gacmaha ma lugaha way kawaab yab igu taagan wax ma qabsan karo gacmaha dadka walaalaha walaalaha gargaarka aqoonta maamulka charity waxaa arkaysaa marba markii ka sii dambayso marxalado kala duwan marxaladaha midba ka daran maanta waxaa u jirnaa wiil Soomaaliyeed oo ah 25 sano jir haddana lixaadkiina oo dhameystiran haddana oo si shaqaysan karin daruuf jirta awgeeda misna xanuun jira awgiisa marka waa u jeedaan wiilkan waa wiil Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay gargaar wuxuuna dhalay 6 caruur marka caruurtiisana maanta shalay wuu shaqaysan jiray laakiin maanta ma shaqaysan karo wuxuuna wax soo qaataa ummadaas waday socota ayuu ka tugsadaa waxa soo siyaan ayuu wax ka siyaa marka waxa ay codsanaynaa walaalaha gargaarka aqoonta maamulka charity wiilkan Soomaaliyeed in gaar ah lagu fiiriyo insha Allah bimaylka walaalaha gargaarka aqoonta maamulka charity maanta waxaan ku gudbinay ساكن سوغاري كتابيدي قرآنك كريمك iyo xasiixiyadii ama sujaayadii ayaan bixinaynay
saakii hore waxaan u tagnay macalin Aliyaal macalin Yaaqub ayaan soo gadoonsiinay 25 kutub iyo 2 sujaayad ayaan soo siinay. haddana waxaan la joognaa macalin Cabduqaadir Maxamed Aadan ayaan la joognaa ayaan gadoonsiinaynaa 25 kutub iyo 2 sujaayad ayaan gadoonsiinaynaa haddii Ilaahay ka raali noqdo. kitaabyada waxaan soo dhiibay walaalaheena birrul waalideyn ayaa soo dhiibay. darmankana waxaa soo dhiibay gabdho Nuur way joogo, Fartuun Cusmaan ayaa soo dhiibtay, Umu Xaabo ayaa soo dhiibtay, waxaa soo dhiibtay Fartuun Cusmaan, Umu Xaabo, Shukri iyo Umu Zubeer ayaa soo dhiibeen. marka deeqdan ayagaa noo soo dhiibay ee Qur'aanka Kariimka ah. wax la baxsada waxaa ugu wanaagsan kitaabkan Qur'aanka ayaa ugu wanaagsan. marka maasha Allah anigan wixii adeeg ah loo soo dhiibay waxaan idin soo gaarsiinay sida ugu wanaagsan oo wax la isku soo gaarsiinay. marka maasha Allah macalin waa kana kitaabyadii iyo sujaayadii. marka insha Allah bini kariim inaad la wareegtay walaalaheena u sheekh una duceey insha Allah. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wixii waan soo gaarin alxamdulilah. ilaahay yaa ka mahadsan. waxaan rajaynaa ilaahay inaa cudurka jir inaad ilaahay ka wareejiyo, caafimaad khayr qabo ilaahay siiyo. waxaan ku codsanaynaa haddana dugsiga inay dhisaan oo ilaahay dartiis wax lagu qabtaan. koronahan jiran ilaahayna qabto, caafimaadna ilaahay meeshiyo ku siiyo, ajari xasanaadna soo koobkorna ilaahayna siiyo. waxaa kaloo rajaynaa wixii aad kitaabooyi waan soo gaarin kitaabooyi wax ka badan inaa iyaga maanta inaan ka rajaynaa wax badan inaa ilaahay gacantiga soo geliyo. ayni kaalmooy doonaan dugsigiina waa iga durbursan yahay inay ii dhisaan degdeg inay igu dhisaan ajaliya. walaalihii waxaan ka codsanaa meel alaal meelay joogaan inay oo dadaalka ay muujiyaan iyona ilaahay adaawad inaas ka dhawado, koronadan ilaahay inaas ka badbaadiyo, caafimaad khayr qabo inaa ilaahay siiyo. saasaan rajaynaynaa kitaabihiina waan ka gaari mahadsan. aad iyo aad u mahadsantahay macalin. waxaan gadoonsiinay macalinka 25 kitaab saaki ayaan dhiibnay iyo 2 sujaayad. haddana macalinkii labaad waxaan siinay 25 kitaab iyo 2 sujaayad ayaan gacanta ka saarnay. waa kuwan hortayna yaalaan. marka maasha Allah aad iyo aad u mahadsantahay walaalaha gargaarka agoonta maamulada charity. walaalahan agoonta ah waxay rabaan dugsigan hadduu roob da'o biyo ayaa ka soo galo, cariirina way ku jiraan. barakadooda aad iyo aad u gaabantahay, kor in lagu qaaday rabaa. marka insha Allah wax la baxsado waxaa ugu wanaagsan wax diinta lagu bixiyo oo diinta kor loogu qaadayo. marka insha Allah waxaa idin codsanayaa meel gaar ah in lagu fiirsan insha Allah bini kariim. assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. walaalaha gargaarka agoonta maamulada charity waxaan la joognaa maamooyinka ka mid ah. saakii waxaan dul laba feenay xaafid doolaabe kaamamka. kaamka waa soo dhammaanay alxamdulilah. waxaan aragnay maamo oo dhibaataysan haysato ilmo agooman. marka maamadan waxay leedahay waxaan kasoo barakacay meel dagaal ka socdo. marka ayna haysato ilmo agooman, qof wax ku siina aysan lahayn. waxay dhahday dad ay aruuriyay oo qol i dejiyay, qolkiina biyo ayaa ka da'ayo. marka assalaamu calaykum maamo. magacaaga? Aamina Cali. intee ka soo qaxdeen? meeshan oo habadaan ugu wadaas biyo habadaan ugu wadaas meeshan ka gacnay oo hubaytan ajnaal. marka inta imaateen yaa wax idin qabto idin aruuriyay? والله ومد إسلام كي أروري مساعد أمال أغوانتا لي أروري ما شاء الله. هذا ممكن يصير هو همي مال وميل أن إفران مال إيموجنات والبرش من هاي صدا. إسكت بويسن مساعد إسكت بويسن أغوان إسكت بويسن أها. هذه المها دكسي إيو إسكول لكي وحوي برنامج. ما شاء الله ولا بردايا. ما شاء الله. يعني يا كوكو بيلا هذا سيدا wax ku heshaan nolol maalmeedkooda. wallahi iska sheegaysa maalintii igo email gaasa ka xaafdo meelan kala oo iimoodo male. ma sha Allah walaalaha gargaarka agoonta imaam u jaarati waa maqleysaan xaalad kuma ka taagan wajiga ka sii xun. marka
maamadan aad iyo aad bay u dhibaataysan tahay barakacna waxaa usii dheer barakacnima usii dheer waxay kasoo qaxday meel oo xabad iyo dagaal ba-an ka jiro ilmahaas aqoontana way wadataa ama waxbarashana ma haystaan marka waxaa la joogaa xilligay waxbaro lahaayeen diinta baro lahaayeen la joogaa waxbarashana ma haystaan marka insha allah waxaa idinka codsanaynaa walaashiina Soomaaliyeed dhibaataysan si uu dhaqsiyaha badan loogu soo gargaaro insha allah bismillaahi kariim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.